waddan kan aynu ku noolahay ee waxa weeyaan markaas Soomaaliland dadkiisa iyo dawladdiisa iyo shacabkiisuba waxay ku raaxaysanayaan dhowr iyo 30 sano ku ceeshayaan nabadgelyo iyo amni ilaahay baa siiyay ilaahay ugu mahadnaqaan baa waajiba dad fara badan baa ku soo duulaya amniga iyo ammaanka ilaahay ummadan ugu deeqay dad fara badan baa ku soo duulay oo raalli ka ahayn oo inay ka baabiyaan doonaya oo har iyo habeen waxa weeyaan markaas u saciyay oo u cararaya siday uga baabin lahaayeen way isku soo kaashadeen haday Soomaaliya tahay haday Puntland tahay haday tahay shabaab iyo haday ictisaam tahay iyo haday ikhwaan tahay iyo haday khawaarij tahay dhammaantood waxay isku soo bahaysteen si waxa weeyaan ummadda dhowr iyo 30 sano waxa weeyaan nimcada ku raaxaysanaysay siday uga qaadi lahaayeen dad baa minbarada ka hadlay mid kamida ka soo qaadano xadiis buu soo qaatay markaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay oo uu Kacbada waxa dubin doona nin waxa weeyaan luga dhuudhuuban xoog iyo dhuudhuuban oo waxa weeyaan tima adag ayaa dubin doona waa sax weey xadiisku waa run laakiin waa waqti ma waa waxa weeyaan markaasi waqti ummaddu ay rugmatay weey salaadi ma jirto oo xaj ma jiro oo calaamadihi waaweeyaan qiyaamihii waa dhacay oo Nabi Ciise ayaa yimid culimada muslimiinta qaar kamid ah waxay leeyihiin calaamadaha qiyaamuhu dhammaantood markay dhacaan ee Nabi Ciise dhinto ee xaj aanu jirin ee salaadi aanay jirin ee waxa weeyaan caalamku waxa weeyaan kharaabo ee sidii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam la waayo qof Allah leh ayaa waxa weeyaan Kacbada la duminayaa wadaadkaasina dadka wuxuu uga dhigayaa si waxa imika ku duulayso xabashida ay qabsanayso dhagax ay u fujinayso su'aal baa weydiinanaa oo waxaan leenahay Soomaaliland haday heshiiska iska dayso nimanka aan la heshiin Kacbadu badbaadaysa malaha waxay jeclaayeen xadiiska in laga daro xagga dambe Kacbada waxa ku duuli doonaa xabashiya oo tilmaamihiisa yahay nabiga uu sheegay waxaan u dimin doonaa waqtigaasi markay la heshiiyaan qolo Soomaaliland la yiraahdo ay la heshiiyaan xabashida baa la dimin doonaa malaha xadiiska been noocaas in lagu daro ay jeclaan lahaayeen waxaan la kala sheegayaa qolada wadaadada ee wadanka waxa weeyaan marka ku nimcaystay ee dhiishiyo dharigiba u yaalo iyo dhashuba ee ka shaqaystay ee waxa weeyaan ku dhalay ee dacwada ka wada ee ku raaxaysanaya wadankiina noocaas cadawga ku noqonina waxay ku hanjabayaan oo leeyihiin waxaan waxa weeyaan marka la dagaalamana Itoobiya oo badaha iyaga iyo wadanka iga qaadanaysa in baa laga sheegay la faaweynaa buuli Itoobiya tii maaha 7-7kii Soomaaliya tii 7-7kii maaha Soomaaliya is dhamaysay ninkii galaal oo jiray soo garanaysan ee madaxdii waxa weeyaan ciidamada Soomaaliya ka mid ah Itoobiya la dagaalamay yaa dilay Itoobiya ma dilay iyaga dilay waqtigii farmaajo la dilay farmaajo waqti kaliya la dagaalamay nimanka khawaarijta la yiraahdo ma jirto kaana ma isii heshiis kula aha dadka muslimiinta iyo Soomaaliya dhiigooga alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa nashkuruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله منها وإياكم أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية ولا ليال بإذن الله تبارك وتعالى قد بدنا وحي كساب سنان دونتا أمني قيّة وحويا مركا قيمة وليه أمني قوان إلهي بحيوه نعمة ما بعدها نمعة ونمع إلهي تبارك وتعالى وبحيو نمعة كوين عن الشرين وضيق إلهي تبارك وتعالى عدو ضروسيه وضيق إلهي سبحانه وتعالى ضدك وحيكو كسبدين
انت شقيستي إلهي كعبستي أمني واعد سيو عدو دوننا إلهي تبارك وتعالى وكقاضه وحي علماء ويراهدان أمني إينا بدقلية إيبانكو كليا كهرية صوبتو أو وحكستا وحي يباهيهين أمني بيباهيهين أمني لا يا إلهي لغو عابدا أمني يا توحيدك إلهي لغو فافيا أمني إلهي بوح لغو برتا أمني وحوين إلهي وبحيا يا وحوين لغو شقيستا إسالا لغو لغضا لغو اسما نوش قبي وأمني يا بابا سادرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث الكسور نوش قبي وبين التهي وحوين مكا أمني من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك وابري استعادة صباحه السوا وحويا المركا عافمات قبا وحويا المركا أهل كيسي كو عافمات قبا وحويا المركاسي وحويا الأمننا هيستا وحويا مالنتا عنينا هيستا waxaad ka dhigayaa qofka adduunyadii oo dhan loo soo ururiyay bimacna wax ka maqani ma jiro waxa la wax ka maqani adduunyadiiba saddexdaasi ku soo ururtay maalinta uu joogo wuxuu cunayo inuu amni haysto caafimaad iyo amni uu haysto waxa weeyaan markaasi nooshiiba intaasay waxa weeyaan ku soo ururtay ila walaalayaal waxa weeyaan markaasi amnigu waa shay qaaliya weeyi نبي الله إبراهيم عليه السلام نبي محمد وكلي آيا كفضل بضن وأولو العزم وحبسي كعبد إلهي حرمك إلهي ولسي حرمك وحوي أمرك لسي إلهي تبارك وتعالى أمني بأبري يا أرساق تتكون نولين السي وكو أرساقه وحول إلهي تبارك وتعالى يسوك ورمي النبي إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربي وحويا مركا دولكن waxaad ka yeeshaa markaa waxa weeyaan mid amni haysta waxaad ku arsaaqdaa dadka deganna midhaha waxa weeyaan cidda ku rumaysay adiga iyo maalinta qiyaamahaba nabi ibraahim wuxuu u bariyay xaramka laba arrimood amni iyo arsaaq weliba arsaaqda wuxuu horeysiiyey amniga ayuu horeysiiyey arsaaqda waa dambaysiiyey sababtu waa maxay amni haddaan haysan arsaaqda meel lagu culama la heli maayo إلهي تبارك وتعالى مركز دعاء وكأقبلي وحرمك وحدقي مركز وحوي المركز أمن بودقي إلهي تبارك وتعالى وحو من نشاكتي قولي وحوي السبع وأمني إيه وحوي المقالوين اسكدوا ينمعوا إلهي سقوق وفري أي إلهي وحري سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سعدها بيني يما لنبا وحويان إذنكو آمنة دولكا يسكو دولويا نمعضا إلهي سوكين دري وحويان مركا هبيني يمالين بالسعودة قفكو مركو هبيني يمالين بالسعودة يودكي سدح سعودة إلهي مو يعد كلاو كعب سريا أني شيرين نمعوين بوهيستان نمعاني كالدنبين وحويان وطن كان أين كنا الله هاي وحويان مركا سوماليلان دادكيسا يدولديسا iyo shacabkiisuba waxay ku raaxaysanayaan dhowr iyo 30 sano waxa weeyaan ku ceeshayaan nabadgeliyo iyo amni ilaahay baa siiyay ilaahay inuu mahadnaqaan baa waajiba la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna adaabi lashadiid wa in arkana nimca kastoo ilaahay ku siiyana xaasid bay leedahay waxay leedahay marka qofkan kula jeclayn nimcada inaad haysato dad fara badan baa ku soo duulaya amniga iyo ammaanka ilaahay ummadan ugu deeqay dad fara badan baa ku soo duulayo raali ka ahayn oo inay ka baabiyaan doonaya oo har iyo habeen waxa weeyaan markaas u saciyay oo u cararaya siday uga baabin lahaayeen ama waxa weeyaan salaadiinha sheegtaan ama madaxa sheegtaan ama xisbiyaha sheegtaan ama waxa weeyaan wadaadaha sheegtaan qaar fara badan baa isku dayaya inay ka baabiyaan oo waxa weeyaan amniga iyo nimcada ilaahay u siiyay weyn ee qiimaha badan leh inay ummadda ka baabiyaan dad fara badan baa u saciyaya laakiin waxa waajiba inaynu ka hortagno markaas waynu ognahay walaalayaal wixii waxa weeyaan ku dhacay wadankan
waxaynu ognahay laascaanood wixii ka dhacay ta iminka laga qaylayo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala aynu ka hadli doonno iyaynu waxa weeyaan arkanaa way isku soo kaashadeen hadday soomaaliya tahay iyo hadday puntland tahay iyo hadday tahay shabaab iyo hadday ictisaam tahay iyo hadday ikhwaan tahay iyo hadday khawaarij tahay dhammaantood waxay isku soo bahaysteen sidii waxa weeyaan ummaddaa dhowr iyo soddonka sano waxa weeyaan nimcadaa ku raaxaysanaysay siday uga qaadi lahaayeen ayay dhammaantood isku soo kaashadeen waxa weeyaan markaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ka qaaday yaa ka qabtay laakiin meesha gebigeedaba inay baabi'iyaan ayay doonayeen ay u saciyayeen markaas waa arrin waxa weeyaan markaas aan bannaanayn oo waxa weeyaan qofka muslimka inuu ka hortago la doonayo waynu arkanaa soomaaliya walaalaheenoo jaaraynu nahay dhibaatada haysata intay dadkooda amni iyo istiqraar u samayn lahaayeen bay waxa weeyaan markaasi halkan doonayaan inta yar haystaa inay ka rogaan waxa weeyaan dadkoogiibaa dhiiggoogii daadanayaa habeen iyo maalinba waa la dilayaa khawaarij baa layna soo dhiiggoogii daadisoo dadkii baabiisay aana qabiil bay isku laynayaan 24 saacadood halkay dad wax ka qaban lahaayeen kuwaa ayay intay waxa weeyaan soo dhaafeen halkan inay balaayo ka taagan tahay ayay waxa weeyaan dadka uga dhigayaan halkani balaayo kama taagneen nimco ayaa ka taagan amni iyo istiqraar iyaa la hayaa waxa weeyaan dad isku duuban oo dowladooda iyo madaxdooda ka dambeeya oo waxa weeyaan markaa amnigaa ku wada nool baa jooga laakiin intaad halkan soo bu'asaan dadka muslimiinta dhiigooga ku daadanayo habeen iyo maalinba ee madaxda u tihiin kuwa wax ka qabta aynu leenahay markaas kuwaasaa ilaahay idin weydiinayaa waxa weeyaan kuwaasaa maalinta qiyaamaha laydinkala xisaabtamayaa way la qabsadeen oo dadkii agtooda lagu diilayo lagu laynayo dhiigu daadanayo ayayna haddana dhibaato u arag halkanay waxa weeyaan dadka ugu dhigayaan inay dhibaato ka taagan tahay haddii walaalayaal aan ku yar noqdo heshiiska gaalada in lala mucaamaloodaa way bannaan tahay in heshiis lala galaalo way bannaan tahay nebi maxamed baa la galay sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa yuhuud la heshiiyey oo yuhuudi u shaqeeyeen oo waxa weeyaan heshiis la galay waa kuwii ugu xumaa weeye waxa weeyaan markaas iimaanka iyo caqiidada iyo waxa weeyaan mucaamalaadka adduunyada waa kala laba qofka macnaheedu waxa weeyaan inaad ka dhigto maaha haddaad la heshiisaba inay isku diin noqoteen qofka diintiisa iyo caqiidadiisa oo gaar u ilaashanayaa laakiin gaalo waa lala heshiin karaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuu la dhaqmay gaalo 13 sannadood iyo mushrikiin la dhaqmay uu reer quraysho la dhaqmay markii maka uu ku noolaa madiinada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu la dhaqmay uu la noolaa munaafiqiin iyo yuhuud ayuu 10 sano la dhaqmiyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa uu shaqayn jiray in yaroo yahuudi ah yaa u shaqayn jiray oo shaqaalihiisa ka mid ahaa nebi maxamed ma uu gaaloodaad odhan doontaa oo uu khaldamay nin yaroo yahuudi ayaa u shaqayn jiray ninkii buu sakaraadku ku yimid nebigu wuu dul fadhiyaa aabbihiina wuu dul fadhiyaa markaasuu nebigu yidhi ashahaado ayuu ku yidhi markaasuu aabbihii sidaa u eegay kii oo ka cabsanaya ka yaari yahuudigii markaasuu aabbihii ku yidhi waxa weeyaan atic abalqaasim nebi maxamed isagoo u jeeda ayuu yidhi nebiga yeel wuu ashahaaday ninkii yaraa ashahaadadii buu kaga baxda uu ku dhintay nebi maxamed wuxuu yidhi ilaahay baa mahadle ilaahay aniga sababkayga naarta kaga badbaadiyey yaa mahadle buu yidhi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam gaalada waxa weeyaan is-araggeega iyo mucaamaladooda haddii lagu gaaloobayo ma yahuudi baa u shaqayn lahaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam